بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد iyagoo lagu jiro maxaan ku raday xagaaga gabagabadiisii ayaa maanta waxa dhacay waqti 3 barkii qiyaas ahaan inay saylac ka dhacday dabayl xoog leh oo ka timiday xagga badda dabaylaha loo yaqaan shimaalka kuwaas oo guriyo badan iyo dhul badan oo magaalada ka mid ah baabiyay jiingada badan dhulka dadka danyarta ay galayeen taasina dhibaato weyn ayay magaalada ka riday حتى هو الكيوينا خيريض هاي محافظة دقمة السيلة أي أسنا بربري ودولك يلا مركز دبعتها وين أي جيستي مركز إن شاء الله دبل وحيد ده اللي قال كروان وقال إن أنا كدولة توسعان أنا جوان كم ده حلو أنا ده كله دجانك إن شاء الله وحيد نجاوب خرنا أنا كل ضد كدبجوك يو ذلك جودي شبه عن كر جيرنا بحي جرجار نوقف كرانين نوقفتان إن شاء الله وسيها شاد دبل ضد كمساكين تدني يرتاح لا عويو ومحن كره wax loogu qabto intaas ayaan idin sheegaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa taatu la mid inuu dib noogu soo maanta ay tahay waxa halkan ka dhacay degmada Saylac abaar 4 barkii galabnimo dabayl yar oo ka soo kacday badda taas oo markii hore ka horeysay roob macnaha saasaan roobkiina runtii dabayshii baa ka xoog badatay roobkii ma deyin laakiin waxa dhacday dabayshiina waxay dhibaato geysatay ilaa 7 aqal oo uu ku sideed yahay hoolkan weyn ee dugsiga sare Saacadiin secondary school Saylac runtii wax khasaara oo dad ay gaariyeen ma jiro laakiin dhibaatooyinka aqalada iyo dhibaato dadka dan yarta ah oo xaafadooda ay dumeen sida darteed waxaan ogeysiinaynaa dadweynaha Soomaaliland dhammaan dawladda inay dhibaatooyinka gurmad kala soo gaaraan annagana wixii dhibaato ay jiraan inaan la garab galno ayaan jecelahay hadii Ilaahay raaho maamul ahaan waxa dhacday abaaro 4 barkii galabnimo duufaan dabayl ah oo ka soo kacay badda inuu ku dhiftay degmada Saylac taasoo waxyeello geystay guriyo badan oo kala duwan ilaa inta hadda aan soo kormeeray oo ka kooban 7 guri soo aragnay oo ugu daran tahay halkan imika aan taaganahay oo ah iskuulkii secondary-ga Saacadiin oo ahna noo ahayd meesha aan munaasabada marka loo baahan yahay ama xusaska lagu qabto hay tahay darkaysan siday tahay guriyo kale oo badan oo dad kale leeyihiin oo shicibina soo aragnay dabayshaas oo xagga badda ka soo kacday oo duufaan ahayd ilaa hadda wax khasaaro oo dadku ma gaadhin laakiin khasaaro badan oo guriyo gaarsiisay ayaa maanta dhacday abaar 4 barkii galabnimo waxaanan ummadda bulshada Soomaaliland u sheegaynaa in dhibaatadaas ay ka dhacday Saylac had arkaysaan maanta laakiin alxamdulillah mar haddaana wax khasaaro dad ku dhicin ay taasi naf iyo maal guriyo un tahay in kale oo badan ay noo hadhanto kormeerayno ilaa hadda saacada kormeer ku jirno wixii dhibaatadu ku dhacday waxaan ku soo gabageynayaa dhammaan maamulka waxaan ka mid nahay dadka maxadanay magaalada gobolka Salal gaar ahaan magaalada Saylac dadka ku nool maanta waxa magaalada Saylac ka dhacay abaara meelaha 4 dabayl aad iyo aad u xoog badan oo xagga badda ka soo kacday oo guriyo fara gaar ahaan waliba dadka danyartii guryahay galayeen baabiisay waxaan ka codsanaynaa dadka maxadanay Soomaaliland ama ha joogan wadanka gudihiisa ama ha joogan dibadda waxaanu ka codsanaynaa inay dadka gargaar hay u fidiyaan oo masiibada maxadanay dhacday lalama ballamin ku dhacday maxadanay magaalada Saylac ka dhacday inay dadka walaalahooda ee danyarta ay dabayshaasi aafaysay inay wax soo taraan baan ka codsanaynaa labadii maanta ayay nagu bilaabantay dabayshu ilaa waxayna haysatay 4 guriyo Saylac kama taagna waxa weeyaan haddaan dawladda Soomaaliland ka tirsanahay deehana soo gaadho macaawinooyinka ay dadka siinayso waan u baahanahay wadada way naga xidhan tahay maanta hadana duufaan baa nagu dhacay guriyihii uu naga wada dumiyay dad dan yaraan nahay amalaan ma hayno waxa loo amalan hayna ma jirto dawladda Soomaaliland in calanka ku rumaynay gobolka Salal maxay ka damacday waxay ka damacday qurba joogtayaduna deehana soo ogaadaano waa dadkoogii waxa maxay danay ingaajadiyo ay laynayse iyaguna dadkooga soo ogaadaan oo wadooyinka noo soo dhisaan oo maxay danay iskuulada noo soo dhisaan imika iskuulkii uu dumay in halkii shirka lagu qabanay way duntay marka biyihii waa kana waad arkaysaa hoose biya 12 kuma siisanaa soo maqlimaysid waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waliba waxaan ka codsanaynaa madaxweyne ku-xigeenka gobolku u dhashay ya inuu yimaado uu naftaan ku noolahay iyo waxay Saylac ku nooshaa warka weeyaan gobolka Salal madaxweyne ku-xigeenkana inuu gobolka Salal yimaado
ودن يرتا كنول أركو نلاش أي كنول يين بدان كنولين بدي واحد أنتي بابورت النومي مادان دوش أي كوريجان لو يعدي مران وحباورا نصو قلا مجرو قاري جات كان نصو قلا بل دتكي كدورتك على عرق دي مدحوينك وحجي وانا نوفر ربنا أنو نلاش يدي كده يهاي بابور كمان ناشقينيني دي كده عمل نوقص وشقيني أنا قشة هلا تجيني قرع على تجيني وحي مجرو نلاش عن كل نولي مدحوينك وحجي نو أرجو كالي وادي كنت جاي عرقابية ملول بوادي كنت جاي محسيلة كعجباي وضي من الله ده ما نكو قبصنا dadka ma ku qabsanayaan dad aragta baadidooda noo kaalay oo naayo dadku waa la tahriibay wadanka waa laga tagay wax bada mara iyo wax halka ay koonfur afrika ka dhoofo weeyaan dadku marka bal noo kaalay shaqaabuur noo samee wadan noo samee dumarka hooyooyinku waxay darahooga iyo caruurahooga ku korsadaan waa dad dan yare de amalada soo madaxweyne ku xigeen aqalka caduna la fadhiino yaana dadkii ku soo doortay maadi lawday waanagii ku dooranay shalay gacmo ku taagan waa inaad gobolkaaga timaada waa gobol dan yara waa hooyooyin bad bay ku nool yihiin tu kalluun yibisa tu ina keegu uga shaqeeyo inamadina laga wada taariib wax ina yari ma jooga sayla maaliyadana anagu ma aragno soo maqlimaysi maaliyaduna meel baylaad ma aragno annagu waxa leena madaxweyne ku xigeenka iyaga in loo yimaado oo gobolka iyaga arko oo dadkiisa dan yartii waxay ku nool yihiin arkaan ka doonayna anagu noo timaado waxigan ku noolay adkaada shan doonayna waxa weeyaan hooyooyinka magaalada sayla ku nool waa hooyooyin dan yara وهويين محيدنا حوكسته وهويين شقيسته مركا معاونوينكا دينتا dadka la siinayana ha loo keeno hana la soo caawiyo guriga way ka wada dumeen